بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام waxaan aad iyo aad ugu hambaleynayaa dhammaan bahda maqalka la ee hoolkan xaadirka ku ah maalintooda ay xusayaan luqadda gaarka ah oo ay leeyihiin. waxaan is leeyahay luqaddan sign language-ka ah dadka maqalka la ay ku wada hadlaan waa luqad caalami ah. waxaan dareemaynaa qofka barta luqaddaas inuusan u baahnayn luqad kala gooni ah inuu barto. maxaa yeelay haddaa Soomaali nahay haddii aad Ingiriis baratay iyo haddaa Carabi barataba waxaad u baahan tahay haddana Faransiiska haddaad tagta Faransiis u baahan tahay. haddii aad Isbaanishka tagtana Isbaanish u baahan tahay inaad barato. laakiin luqaddan sign language-ka dunida qaybaheeda kala duwan waxay ka tahay luqad caalami ah. meel kastoo aad joogtid luqaddaas aad ku barato waa luqad common ah oo dadka dhan wada leeyihiin. saa daraaddeed marka waxaan leeyahay luqaddan waxaa aad iyo aad u wanaagsan keliya inaanan la barin dadka maqalka la ee waxaa wanaagsan dadka xitaa wax maqla inay bartaan luqaddan. waa muhiim khaasatan macallimiinteenna annaga ama dadka macallimiinta ee dadka wax bara muhiimay u tahay luqadda inay bartaan. maxaa yeelay bulshada sidii hore ma aha. awal ma jirin dad maqal la ama dad naafo ah inay soo dhex galaan bulshada kale. laakiin hadda bulshada way isku furmatay. dadka maqalka la iyo dadka dhagaha laha waa wada tacaamulayaan. saa daraaddeed marka wuxuu u baahan yahay qof walbaba inuu barto luqaddan si uu ula tacaamula bulshada. aniga marka ka macallin ahaan dad badan oo naafo ah ayaan wax soo baray. hadday noqdaan kuwa maqalka la, hadday noqdaan kuwa indhaha, hadday noqdaan kuwa curyaana, guud ahaanba. maantana waxaan arkay marka meelo badan oo aan tilmaam ahaan ka bixinayay. waxaan xasuustaa Cabdifataax iyo Rihaam iyo groupkan maray jaamacadda bilowgeedii hore semester 1-kii ay imaanayeen anoo cashir bixinaayo ayaa galaaska lagu soo daray maadadii saa u sharaxaya maadada ayaa markii dambe ileen aniga ma u malaynaynin dad maqal la inay meesha joogaan uma malaynaynin. xiisadiisay u socotay ayaa gadaal dambe Cabdifataaxa ila hadlo dhahay macallin annaga waxaan nahay dadka maqalka la waxaan rabnaa inaad si gooni wax noogu sheegto. bis markaa xiisada soo dhameeyay waayaan xiisada markaa soo dhameeyaan gooni u wacay waa ay yimaadeen. waxaan ku dhahay marka haye see wax u rabtiin ina ardayda dhexdooda waxa idinku siiyo inaad gooni waxa idinku siiyo. markaas waxay dhaheen macallin ardayda dhexdooda inaan cashir ku qaadan rabnaa. haddana saas ay tahay waxaan rabnaa luqaddan inaan ku barno si aad galaaskan annagana aad noola jaan qaado kuwa kale oo galaaska ku jirana cashirkooda si caadi aad ugu wado. waxaan xasuustaa marka ereyo gaar ah oo muhiimadda markaas aan saarayo cashirkeeda aan ka hadlayay oo ka hadlayay baranjiyada ama laamaha dowladda ay leedahay iyo waxa la xiriira aan ka hadlayay. marka waxaa jiro 3 qaybood ama 3 laan oo dowladda ay leedahay: xarunta garsoorka, laanta fulinta iyo laanta sharci dejinta. marka waxaan dhahay waxaa ii sheegtiin 3daas waxa lagu dhaho. waxaan xasuustaa marka in ay dhaheen laanta garsoorka markaad rabto inaad dhahdo saas waa laanta garsoorka. waa laanta sharci dejinta markii la leeyahayna saas inaad dhahdo waa macnaha. laanta fulintana saana ay sharxaad ahaan igu siiyeen luqadda inay igu bareen.
waxaan marka aad ula dhacay xaqiiqan luqadda muhiimadda ay leedahay bulshadana guud ahaan ay u leedahay si markii loo fiiriyo caqabada bulshada dhexdeeda waxaad arkaysaa dadka maqalka leh oo dhagahooda caadiga yihiin oo meesha fadhiya haddii sharaxaadda guud aad oo wadid macalinka markuu body language wax la yiraahdaa jiro macalinka markuu sharaxaadda bixinayo gacmaha inuu ka hadlaa body language-ka markaa hadlaysid marka ardada waa caadi gacmaha inaad dhaqaajiso laakiin adoo sharaxaad wadid maanta waxaan ka hadlaynaa laanta garsoorka waxa waaye dadka maqalka la ay ku fahmayaan ilaa waxa ka hadlaysid laakiin dadka maqalaanta maqalkooda caadiga yahay macalinka waxay isleeyihiin ma waasha micnaha maxaa saan macalinka muxuu ka wadaa waxa waaye caqabada bulshada dhex taalla waa micnaha marka meel walba markaad ka fiirisid waxaa la rabaa marka inaad iswaafajiso bulshada joogto ee maqalka leh iyo kuwa maqalka aan lahayn labadaba inaad iswaafajisaan la rabaa marka waxaan leeyahay marka muhiimadda waxa ay u leedahay bulshada taas waay dadka ayagana indhaha la na waa arkay waxaa jiro far bareelaa lagu qoro ayagana sidoo kale oo ay bareenbo 1 2 3 4 ilaa ba'taada ABCD ahaan xitaa way tuseen ayagana sida loo dhaxo marka waxaan is leeyahay aniga horta fursad aad muhiim ah waaye inaan bartana waa jeclahay waxaan rajeynayaa insha Allah taala dadka hadda soo baxay ayaa ka sii badan hadda Cabdifataax iyo dad yar waayba oo marka hadda galaaska iyo jaamacadaha dhiganay dad yar ahaayeen laakiin dadka soo socdo ee maqalka la aad u badan yihiin macnaha dadkaas marka haddii aniga waxbarashada aan ku sii jiro qasab waayo way iimaanayaan haddaba sanadka hadda jaamacadda aan joogo urur waxaa jiro ayaga ay ku midaysan yihiin waa jireen oo nala soo xiriiray oo warqad ii soo diro na dhahay scholarship na siiyay arday waxaa jirta soo baxday in maxaa la yiraahdaa ay idin imaadaan arma marka warqad scholarship aan u dirnay sanadkan waxaan rajeynayaa insha Allah taala jaamacadda inay ayagana qayb ka noqon doonaan ardadaas sanadkan soo baxday dugsiga sare ee maqalka ayagana waxaan rajeynayaa inay faa'iido u noqoto macallimiinta waxaan diiradda saari lahaa inaad ururka ama gudoomiyaha aan la hadlaa Cabdifataax in aad sameysaan kaliya ku ekeynina dadka maqalka la kaliya dadka xitaa maqalka leh ee wax maqlaayo way u baahan yihiin luqadan in la baro sameeya marka xitaa seminaaro ama waqtiyo qaarkood oo tababaro ah oo luqadan dadka lagu bulshada lagu wada baraayo si ay isula jaan qaadaan ayadana waa ka codsan lahaa Cabdifataax iyo tiimkiisa si ay maxaa la yiraahdaa dadkana dad iskugu dhex daraan haddii kale waxa uu sheegay ahayd in faquuq macnaha discrimination ka jira dunida waaye dadka maqalka la in la faquuq wax iska caadi Soomaaliya tuba ka sii daran tahay ilaan dhibaatooyinka dalka ay kala kulmaana ka badan darada ugu dambeysay wiil oo asna ardada kamid ah jaamacadda ka baxay oo waxaan arkay mooto bajaaj ay dishay macnaha oo asagoo xog oo Facebook soo dhigay Facebook qoraal dheer ku soo qoro marka uu leeyahay dadka dhagaha la ama dadka maqalka la waa dhibaatooyinka ay bulshada kala kulmaan baawurka maqlaayaan bajaajta daba socota maqlaayaan dadkana waxay u maleeyaan inay maqlaayaan kas ka tahay macnaha markaas kuwa qaarkood xaasnimo ku qurfanayaan wax fiicanna ma aha sida saxda ah meeshaas waxaad ka arkay marka discrimination-ka bilowga ah ee Soomaaliya gudaheeda ka jiro dunidana meelaha qaar waxaa jiro ayadan laga faquuqo marka haddii bulshada ay isdhex gasho waxaa ka baxaya meesha faquuqa uu ka baxaya waxaa la ogaanayaa inay luqadda muhiim u tahay dadka waa la isbaraa hadda markii laga hadlayo communication-ka ama xiriirka markii laga hadlayo asaga wuxuu u sameeysan yahay oral communication iyo maxaa la yiraahdaa verbal communication u sameeysan Soomaha marka inta badan sign language ka qayb ka tahay waajib waayo qofka inuu yaqaano ama fahmayo sign language inuu fahmayo maxaa yeelay qof caawin u baahan karo mana hadli karo calaamado ku sameeyna marka waa ina calaamadaha aad fahmi karto waayo oo qofka caawiyo oo ka wada calaamada adigana waxa laga yaabaa inaadan fahansaneyn caawi inuu ka wado marka waxaan rajeynayaa insha Allah taala waa mahadsantihiin dabaaldega isbuucaana waxaan aniga qiimo gooni ay ii leedahay inaan ka soo qayb galo Rihama ila soo xiriirto ii soo sheegtay oo igala soo hadashay WhatsApp-ka
waxaan leeyahay idinkana sidoo kale dhammaan waa idinkala qayb gali doonaa insha allahu tacaala waana idinkugu hambaleynayaa maalmihiina inaad bulshada wax bartaanna luqadiinana waa aad muhiim u tahay waxaan idin leeyahay hambaliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu